السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خير كسو دوادا channelka OMAYA EXCHANGE haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar sidoo kalena videogan like saar si ay asxaab badan ay u gaarto maanta waxay leeyahay wararkii u dambeeyay ee cryptocurrencies-ka ka soo kordhay saacadihii u dambeeyay halkaan aynu kula wadaagi doonaa hadduu alla idmo insha Allah maalin kastaba cryptocurrencies-ka newskeeda wararkii u dambeeyay si aan mar walba update u ahaano haddii aan nahay team cryptocurrencies-ka haddaba wararkeenu waa bilaabeynaa aan shaashada idin sheergareeyo si aan wararka ula socono horta website-kan aan joogno waxaa la yidhaahdaa Cointelegraph waa website caan ah oo laga akhristo wararka oo runtii dad badan ay warar ka akhristaan halkaan aan kasoo xigin doonaa insha Allah wararka ugu muhiimsan waxyaabaha maanta ka dhacay 9 saacadood ka hor ayaa warkaan lasoo dhigay haddaba maxaa ka dhacay cryptocurrency-ga saacadihiina soo dhaafay سأبنا هرتا سوق cryptocurrency-ga wuxuu ku jiraa waqti aad u muhiim ah qof walba la rabo inuu la socdo kan koowaad soo qaadana waxay tahay crypto VC weather market is near the bottom sawjeedan cryptada waxa la sheegay maalgashadayaal caan ah ama dad cryptada analyze gareeya waxay qeexeen ama ay sheegeen in cryptocurrencies-ka uu joogo waqtigiisii meeshii ugu hooseysay macnaha uu gaari karo meeshii at the bottom uu gaari kara macnaha nin loo yaqaano Hartman oo iska leh shirkadan Hartman Capital founderkeeda wuxuu sheegay in suuqyada crypto ay gaareen heer hoose oo u dhow in dib kor loogu soo laabto waqti dhow dib loogu soo laaban doono sidoo kale wuxuu tilmaamay in heerarka maalgelinta loo yaqaano negative funding rateska iyo dareenka dadka oo noqday mid rajo xumo keenay ay muujiyeen in suuqyadu ay yihiin ama ay u eg yihiin in kuwo dib u soo laaban doona macnaha meesha ugu hooseysa mar walba markuu suuqa joogo kor mid u soo laabanayo noqda haddaba sidoo kale wuxuu xusay in altcoins badan ay dib ugu laabteen trend lineski sawdino Ethereum oo kale tusaalada la soo qaato trend lineski uu suuqa markii uu gaaray in dib ugu soo laabteen meelo uu suuqa hore u taabtay trend line ma taqaanin in dib ugu soo laabtay taasoo keeni karta marka in tusaale ahaan hadda Ethereum oo kale December 2024 waxaa lagu trade gareynaya iyadoo ka koraysa 4000 wadadeeda oo resistance ay ku sameynaysa 2024 all time high oo ah 4878 si kastaba ahaatee assetkaas bullet bag uu sameeyay ama bullback oo ah 2638 price-kaas soo daatay waqtiga la soo publish gareeyay documentigan ama warkan la soo publish gareeyay haddaba waxaa u jeedno suuqa meeshiisa ugu hooseeyo joogaa sida analysts-ka ay sheegayaan marka waxaa u gudbi doonaa warka xigay waxaa la sheegay tirada lacagaha digitalka ah ee cusub ama cryptocurrencies-ka cusub ee soo kordhaya inay aad u bateen cryptocurrencies-ka total cryptocurrencies-ka soo kordho inay aad u bateen ayaa iyadana sidoo kale la sheegay cryptocurrencies-ka waliba market cap-ka lagu listigareeyay inay gaareen 12 milyan ay ku dhawaadeen macna 12 milyan inay gaaraan haddaba kororkaas maxay ka dhigan tahay maxay uga dhigan tahay dadka cryptocurrencies-ka ku jiro kororkan degdeg ah ee imaaday in tirada cryptocurrency-ga cusub ay macnaha 12 milyan ay gaarto horta walaac badan ay ka dhalisay suuqyada oo inay noqdaan kuwo xad dhaaf ama waxa loo yaqaan oversaturation sida uu sheegay Ali Martinez oo ah isagana market trader oo popular ah haddaba arrintaas waxay keeni kartaa marka ama falanqeeyayaasha analysts-ka waxay ka digayaan in tirabadnidaas oo tokenska ay hoos u dhigi karto focuska iyo sidoo kale waxa loo yaqaano diiradda ay maalgashadayaasha ay fiirinayaan haddii waxaan soo bataan arrintaas ay keeni kartaa sidoo kalena inay yareyso sidoo kale dhammaan altcoins-ka maadaama waqtigeedii la joogo altcoins season-ka uu soo dhow yahay in haddii altcoins badan ama coins badan ay imaadaan arrintaas iyadana sidii looga faa'iideysan lahaa hoos u dhigi kartaa taas iyadana sheegeen warka saddexaad oo isagana muhiim ah waxay tahay wax loo yaqaan real world assets ka soo noqon qeeray real world assets waxa la yiraahdaa assets ka caadiga ah oo hadda ay jiro oo sida saxda u jiro sida guryaha fashionka artist-ka iyo waxyaabahaas la midka ah in la soo qabto kadibna laga dhigo ama blockchain la saaro si ay u fududaato markaas in la trade gareeyo sidoo kalena in la isla lahaado iyada xitaa naftirkeeda inay u fududaato ayaa loo sameeyay haddii real world asset ama wax loo yaqaano tokenization haddaan hore u maqlin in badan waxaa kaga soo qeexnay Facebook iyo sidoo kale YouTube-ka iyo dhammaan platforms-ka aan ku leenahay iyadoo aan kaga hadlayna arrimahaas dib ugu laabo oo soo fiirso laakiin tokenizationkaas ama real world assets-ka in token laga dhigo
kadibna laisla trade gareeyo ayaa soo batay oo dadka aad ay maxaa la dhahaa ay u sii fahmayaan waxa loo yaqaano real world ama tokenizationkaas in laga dhigo Alexander Loktef nin la yirahdo oo ka tirsan B2B organizationka wuxuu saadaaliyay in guud ahaan qiimaha uu gaari karo 50 bilyan marka la gaaro 2025 waliba arintaas waxaa looga faa'iideysanaa bitcoin-ka oo qiimihiisa aad u yar micnaha qiimo dhac oo hoose ku imaaday maalmihii u dambeeyay iyo sidoo kale dhammaan suuqyada online-ka ah ama stock marketska oo iyagana daadanayay oo uncertainty ay ka jirtay baryahan dambe ayaa taas sababta la dhihi karaa oo dadka inay dhinacan ay xiisaha u soo muujiyaan ay dhinacan u soo jeestaan haddaba adiga maxaa ka aaminsan tahay horumarkan saa u jeedno dhammaan wararka ka soo baxayo waa wada positive suuq cryptona waxaan rajeynaynaa inuu noqdo mid maxaa la yidhaahdaa soo hagaagi doono oo waqti badan aan ku qaadan doono hadduu ala yidhahdo insha allah adiga haddaba dhankaaga maxaa ka aaminsan tahay wararka maxay ka bedeli doonaan sidoo kalena fiidiyoyada noocan ooga hadleen waxyaabaha soo kordhay cryptocurrencies-ka newska in aan iyadana aan soo gelino sidee u aragtaan intii aan kaga kulmi doono warkan ka duwan ama information kale aan isweydaarsan doono nabadgelyo ayaa idin leenahay hadduu ala yidhahdo